madaxweyne maamul goboleedyada haddii aysan wax benefit ah ama faa'iido ah maadi iyo macnawi haddayna dawladda dhex ku haysan hadday dareemayaan inay qataru kaga soo socoto waa human nature waa dabeecadda bini aadmiga inay isu tagaan oo ay ka shaqeeyaan sidii isaga difaaci lahaayeen marka dhibaatadu marka waxay tahay marka maamul goboleedyada ma aha ee waa dawladda federaalka ayaa waxay gatay shaqadeedii wax si kale uma gibin saakay oo la joogo hadda saacadan aan kula hadlayn anigu nin Soomaaliya nahay waa u jeedaa cirey bidara igu yaala meel ay u socoto ma aqaano waliba anigoo bartay cilmiga siyaasadda iyo istaraatiijiyadda laano ayadoo qoraal ah oo ay leeyihiin waxaasan qabaynaana ma hayno ayagoo nala hadlay oo inta media la hadlay fikir ay qabaan oo dawladnimada ku sameeyay articulation ama falanqin ku sameeyay oo nagu qanciyana ma jirto kuwii u yeeri jiray haddii u yeereen oo inta meel isugu geli daarada ku qaadeen ay London geeyeen warqaday u soo qoreen waa tana hal shay oo wixii ku qoran oo laga fuliyo male sanadka 2017 kan loo baahnay in la fuliyo mid kale hadda tageen Brussels hadda la geeyay haddana buug kale haddana loo soo dhiibo buug horna kama soo bixin marka meesha waxa ka socota adigoo ilmo aad dhashay dugsi quraan geystay hal sano ka hor oo alif ahmed loo bilaabay oo haddana ku laabta macalinka hal sano kadib si aad u soo ogaato ilmahaagi hore marka uu sameeyay oo u tagay ilmahaagi wali loo qadabta u saaray ay ku qoran tahay alif ahmed yani alif ahmed bal laga gudbaba hawsha dhanba waaba alif ahmed ba haday tahay siyaasad haday tahay nabadgelyo haday tahay dhaqaale haday tahay dib u heshiisiin wax laga fikira male dadka Soomaaliyeed waxyaabo looga baahan yahay waxa kamid ah in la heshiisiyo halkan waxaan ku hayaa warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ah hadda ayaa waxa la dhowaayaa maxay yihiin waxyaabaha ay salka ku hayso khilaafka Soomaaliya ka jira hadda iyo su'aashaas taagan oo hadda iyo su'aashaas taagan ayaa la isweydiinaya okay dastuurka la dhahay hal lagu sameeyo waxa la leeyahay waxa lagu sameeyaa review dib celin maalin hore waxay u tageen gudoomiyaha baarlamaanka oo hadda cusub iyo kuwa ku xigay u tageen guddiga waxay u sheegeen inay luqada wax ka soo bedeleen dhowr qodob yani wax la qabtay male haddii aan dib heshiisiinta wax laga qaban oo dastuurkii wax laga qaban oo amnigii wax laga qaban oo inta ay ku qoran tahay 2017 ciidamada in la isu geeyo sektarada in la sameeyo in booliskii la habeeyo in militarigii la habeeyo in qawaaniintii la qoro wax la qabtay haba yaraatee ma jirto qofkii Soomaaliya oo in wax la qabtay oo shay kara magaciiga waxa la dhahaa Xasan Sheekh la dhahaa Facebook oo ku jira sawirkayga arkaysaa anoo timal adeer oo soo diran ka faa'iideystay marka meel wax la qabtay ma balahaba marka meesha maadaama aan inta wayna wax caalim ayaga dafsadooda waxaan ku eedeynaa inay eedeeyaan meel waxba oo waxay inaysan waxba eedeyn intay tashalaad ay dhahan war waa u jeedaan meeshii aan wax u doonan lahayn wax yaala ma jiraan adeero anagu saa wax u qabsanaa oo haday iyagu dadnimo leeyihiin inay wax qabsadaan saasay ahayd inay cid eedeeyaan ma baahaba laanu carabtu waxay tiraahdaa faaqid shay la yaqdi muqdisho wax yaala male wax muqdisho lagu eedeeyo male saalaan shalay warka oo soo qoro war la soo qoro waxa kamid ah madaxweyne gaas ayaa wuxuu yiri ciidamada waxa wax la siiyaa dhahay banaadir kuwa kale wax lama siiyo war kuwa banaadir waxba lama siiyo waa kuwa jidka taagan dadka iska tugada wax la siiyo ma jiraan mushaarkooda qaataan laakiin oo waxaas wax ku tabay boqol xidad ku tartaa marka boqolkaas wax la isku haysto baa loo kala tagsan yahay marka waxay tahay madaxweyne goboleedyada war inta iska dhaaftaan eedan aad Villa Soomaaliya aad soo eedeynaysiin Villa Soomaaliya wax yaala ma jiraan adeero wax qabsada resource iyo dal iyo dad waa leedin isku tashada saas aan u sheegi lahaa